السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعبد الناصر ومانتنا سيدي عدد إنه هاي هلك كان إذا كسر من دونا برنامجي اللي تحملها إنه كده حد بتشتري وحياة فربنا وكرتون إن شاء الله تعالى مانتها وحمدين هي برنامج خصها بسن أحلامها الدقة كأي صومالي لقارحان حول نقطة ومجلس الله يلعبه xoolo dhaqatada Soomaalida ama reer guuraaga Soomaalida maadaama asalka Soomaalidu uu ka soo bilaabmay reer guuraag oo ilaa iyo hadda boqolkiiba 70 ama 60 ku dhow 70 ku dhow ay bulshadeena yihiin reer guuraag reer miyi ah oo xoolo dhaqata waxay noqon karnaa nolosha Soomaalidu maadaama ay ku salaysan tahay nolosha miyiga oo nolosha miyiga la'aanteed aanay nolosha magaalada waxba ahaateen ama aanay waxba noqoteen waxay mudan tahay markaa inaynu in badan ka hadalno oo aynu wax badan ka fahansiino da'yarteena reer magaalka ah ee u baahan in ay arrimaha miyiga wax ka ogaadaan waxaan jecelahay maanta insha allahu tacaala waxaan idiin soo gudbin doonaa nin kasta oo Soomaaliya oo reer guuraayo ama xoolo dhaqata ah waxa uu dhaqdaa meesi ka mid ah meesiyada xoolaha ee ay dhaqato Soomaalidu gaar ahaan meesiyada xoolaha ee ay Soomaalidu dhaqato imisa horta loo kala saaraa imisa qaybood u qaybsamaan waxaynu oran karnaa meesiyada xoolaha ee Soomaalidu dhaqataa waxay u qaybsamaan waa Allahumma salli ala Muhammad ari iyo ishimbay oran karnaa ariga waxaa la yiraahdaa wuxuu u qaybsamaa laba qaybood waa gorodmadow iyo geesley gorodmadow waa ilaha madaxa madow geesleyna waa riyaha أنا بلغنا نوع السبتة قرود مدو هي جيسلي إذا قرط مدو يخليها جيس كله لما نوع مركب السكوت هي إذا السكوت روح على السكوت يلاحظ عري وادي الشوك نوع جيل اللي الله وحكروت شرم بيسي صدحاو يسجن مجلس على يلاحظ جمال نوع فرضها تمارها بقلها يوم قال كراهة تطلع وعند جده وكل هواي مركب نوحو لقنايا جيل أما الشيكو لقنايا وكوكو كي جيل نوحو لقنايا لا ويلا ما كمل الشيكي أو أنا اللي يشوف يسمونه والله بدنا نوع جيل يلا على يسكون على الشيء أما حولها واوين سيد جيل يلا الشمبار يسكون على وين مركا ما دام qof kasta oo Soomaaliya oo raacati uu noqonayo meesi ka mid ah meesiyada xoolaha Soomaalidu dhaqato waxay isu faanayaan ka xoolo dhaqatada oo isu faanay had iyo jeer bulshada Soomaaliyeed waa bulsho kaftan badan oo laga waayo faan iyo faakaanu laga waayo way isu faaneen waxa isu faanay nin ari dhaqday iyo nin geel dhaqday iyo ninkii loo dhaqday baa isu faanay oo nin waliba wuxuu yiri aniga ka xoolo fiican iyo aniga ka sareeya markaasaa nin waliba kabaha soo iladay nin waliba weysadu soo biyeystay nin waliba wuxuu go'aansaday inuu ninkan kale ee uu isagu ka guuleysto balse waxay leeyahay doonaa guushii ay raacay markay saddexdii nin isu faaneen waxa ugu horeeyay ninkii geela lahaaba ugu horeeyay oo idinka kala xukumaya anigu kala saari maayo idinka kala xukumaya ninka koobka qaaday iyo ninka laga badiyay bulshada Soomaaliyeed baan u daayay inay iyagu go'aan ka gaaraan لكن أنا بقول برنامج يسوع بنيا يو أنا بيشيء فان كي بحمري صدق ضامن حوار دقتها بدنا أرجع نقضي بدنا جيل نقضي بدنا الله نقضي كيبا حوار ونعكسنا ذيك يدين تلا جواب كيبا قاب كقاضي وحقي لجواب يا أسرتي وحقي لجواب يا بوليستي يا بودرستي أنت بيدي كان ديتا وين أنا شو ولا ninkii geelu wuxuu yiri jablan iyo kurs qaruuriya jiir karuuriya ay isku wada jira jaawo mooye ma wax la jira qaruuriya jiir karuuriya ay isku wada jira jaawo mooye ma wax la jira jaawo waa magac ka mid ah magacyada geela loo bixiyo xoolaha Soomaalidu ay dhaqaan meesi kasta oo ka mid ah magacyo loo bixiyo ninkaasi sidaas uu jaawo mooye xoolo kala
wuxuu ammaanay inuu ammaan xad-dhaaf ah siiyey geeliisii uu dhaqanayo waayo isagu wuxuu yaqaanaa manfaca iyo dhaqashada geela ayuu ku takhasusay oo aqoon sare u leeyahay sidaa daraaddeed uma haysto in dadka xoolaha dhaqda ee kale ama xoolo dhaqatada kale ee ariga iyo lo-da dhaqda in ay dadba yihiin oo ay nolol haystaanba uma haysto waxa kaloo ku sii daray ninkii geela lahaa anoo suub iyo seenyo maalaa seexan waaye sagaalaysatiya sabool adhiyarisay nooli anoo suub iyo seenyo maalaa seexan waaye sagaalaysatiya sabool adhiyari say nooli yacni suub waa hal magaceedyada aniga oo xoolo dhaqato ah oo geela dhaqda ayaabay noloshaydii saranseer iyo sursuur adag gasheen sidee bay dadka dabatada ah ee ugaarsadayaasha ah ay u nool yihiin iyo dad saboola oo ariyaru dhaqda sidee u nool yihiin bule intaa haddaan kaga gudbo ninkii geela dhaqday waxaa halka kan ka soo booday ninkii looda dhaqday oo isaguna wuxuu ammaanay meesigii xoolaha ahaa ee uu dhaqanayay ee gaar ahaan looda wuxuu yidhi 3 gobonnimo geelu kulama leh 3 gobonnimo geelu kulama leh geeskan fulinkaa ee gujada badan geelu kulama leh saanta gibishaa ee guryaha taal geelu kulama leh garoor googo-an oo la gala bulo geelu kulama leh wow ninkaasina ammaantii lo-da meel buuday 3 gobonnimo geelu kulama leh geeska fulinkaa ee gujada badan geelu kulama leh saanta gibisha ah ee guryaha taal geelu kulama leh garoor googo-an oo la gala bulo geelu kulama leh wuxuu ammaanay ninkaasina meesigiisii uu dhaqanayay ee lo-da ayuu ammaanay gobonnimada aad leedahay buuri waa 3 adiga kuu gaaro aan geel iyo mid kula lihi toona jirin geeskaagaa fulinka ah ee aad wax ku gujiso wixii aad garan weydo geelu kulama laho geelu geesamalade geel geesala yaa arkay la soo sheegay lama hayo lama arag geel geesale lo-du baa geesale iyo riix markaa isagu riyihii uma jeeda iyo igihii wuxuu yidhi geeska fulinkaa ee gujada badan geelu kulama geelu geeskaa kulmalaha ugaa ku yahay waxyahay kow saantan gibishaa ee guryaha taal geelu kulama leh saantaada fiican ee markuu neefka sicii la gowraco ama uu dhinto saan baa lagala baxaa saantaasi waa saan aad iyo aad u qurux badan saantaasi gibisha ah geelu kulama leh garoor googo-an oo la gala bulo geelu kulama leh caanaha geela lama lolade caanaha geelu subag ma laha caanaha lo-da subag bay leeyihiin waa la lulaa ka hor inta aan la lulina caano hoodhaya ayaa la dhigaayo waa la dhanaaniyaayo markay dhanaanaanay garoor bay isu bedelaan garoor dadkay isu bedelaanna haantaa lagu shubaa ama qoriyaa lagu shubaa ama haan qaba-abaa lagu shubaa markaasaa la lulaayo weliba haweenka soomaalidu haanta waa u heesi jireen oo maxay odhan jirteen haantii qabay qooryar qooraansigay baratay way u heesi jireen laba qaaran kugu buuge laba qaarna buu kala jaray furtaa lagaa nuugay heese badan bay ugu heesi jireen ayay ugu heesi jireen haanta heese badan oo haantu leedahay baa jira oo dhammaan gobollada soomaalidu ay degto oo dhan gobol kasta inkasta oo badankoodu ay isugu yihiin haddana waxyaaba yaryaroo lagu kala duwan yahay waa ay jirtaa ninkii lo-duna halkaasuu mariyay ammaantii lo-da waxaa soo hadhay ninkii ariga dhaqday muxuu isaguna yidhi oo arigiisii ku sheegay siduu arigiisii u ammaanay wuxuu yidhi isna awlalka xarkagay ee xayaabada xagga hoose iyo xagga sare ku leh xaaxay mooye xoolo kalama awlalka xarkagay ee xayaabada xagga hoosiyo xagga sare ku leh xaaxay mooye xoolo kalama yacni wuxuu yidhi isaguna awlalku waa cadka feeraha ku yaalla ee cadka ugu wanaagsan ee haddii cidi kuu timaado lagu sooriyeeyo ee xidid iyo xigaalbo la siiyo ee marka martii kuu timaado loo geeyo cadkaa weeye cadka feeruhu iyo awral baa laydhaa wuu isku yaallaayo waa dhinacaasoo dhan oo iswata marka waa cad aad u macaano waa cadgobeed baa la ydhahdaayo waa cadka gobta inkastoo u jirin cadgobeed haddana cadadkaas sii kala sarreeyeen kan waa cad ka mida cadadka u sarreeya cadka adhiga marka awlalkaasuu yidhi baruurta xagga sare kule iyo xagga hooseba xayaabadu waa baruurta weyn awlalka xagkagay iyo xayaabada
حاجة هوسيو حاجة سرق كله حاحي موية حركة ما نف أريه موية يعني أول ضرورة من عوض بكله محرك ولا بأجر ومركي مرتيبوت ما دل معسومي كرام هدي عاو مرتيبوت سوغيتو نف كيرا ومقالي كرتي نف لوانا ومقالي كرتي لكن مركب محادة تنيك وضري نف أريه أيام مركب ديك تنيك وضري مركاسو حلكي كاني مرتدينا مفصول نقرن مركاسات اللي يريه وهي البلد مرتي مضربة مركاسو غير هذا وكنا قدورا مفصول صدق من سلاسة السقوفانين بالمركا يدينك أيام يدين دايي وحوي سلاوك حكومة إسلامية كاكوب كسيريسان منك جيلا سيسن منك أريغا سيسن بسنك الله سيسن فرينتا وحوي قيم تفاضل أما كنا تسكى أيام إن شاء الله ونقول دونتان آلية أدبر هنسنتهين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإنه برنامج تنبغو في السنة